الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sheekadaanuna waa sheeko qof walbana qabsan karta, qof walbana taabanaysa, qof walbana uu la kulmay ama maqlay ama arkayba. waxay leedahay sheekadan wiil yar ayaa hooyadiis la noolaa. hooyadiis marka shaqaalay ahayd, marka ilmo ka yar oo isagana guriga jooga iyo shaqa gurigii in laga qabto u baahan iyo waxyaalo badan bay wiilkii u dirtay oo tirada ka qabo oo kaas qabo oo kaas qabo oo kaas qabo oo kaas qabo. maalintii dambe waraaq wuxuu ku soo qoray wuxuu shaqo qabto oo dhan, yacni guriga nadiifintiisa waxaan ku qaadanayaa $15. cunada karinteeda masalan haddaan kariyo $20. waxbuu tiriyey $100 iyo ziyaado baa usoo baxay. hooyadii buu u yimi, marka maalinta iyada bay xoogaa aada u murmeen oo waxyaala ku murmeen. marka waraaqdiibuu marka la soo baxay oo wuxuu yidhi hooyo inaan waxaan rabnaa aan xisaabtano wax bilaasha hadda kadib ma jiraan. warqadii buu tusay, waraaqdii markay akhrisay ilmaa indheheeda kusoo istaagtay. oo jamiil bay tiri, waxba kama qabo bay tiri, waa leedahay intaane, bal anigana isii warqadda aan qoree. waraaqdii bay dhinaca kale u gedisay, kaasi waxay qortay 9 bilood ayaana caloosha kugu waday. wax lacaga miyaad siisay? maya. intaas baan ku soo hayay oo ku nuujinayay, intaas baan caano iyo dhar kuu gadayay, intaas baan kuu hurdo seegay, intaasoo jiranayd baan anigu seexan kari waayey, intaasoo muddo ah baan waxaan ka fekerayay oo weliba shaqadayda aan waqti dambe uga soo baxayay yuusan asaagiis dib uga dhicin. intaas bay tirisay. waxaasoo dhan lacag lagaagama rabo bay tiri. waxaasoo dhan iska ilow, ilaa adigu waxbaa tirsatay, jacaylka keliya aan kuu qabo bay tiri. yaa maxaa ku qiimeynaysaa bay tiri, taa keliya qiimeeda isii bas. wiilkii yaraa intuu iska ooyey oo hooyadiis ku soo booday buu wuxuu yidhi wax aan xisaabsan karo ma ay jiraan. waan caqlistay, hadda waan fahmay. halkaa maxaa ka garanaysaa waalidka qiimihiisa, weliba siib gaar ahaaneed hooyadu waajibka ay leedahay. nabigeena calayhi salaatu wassalaam markii la weydiiyey yaa ay ugu xaqa badan dadka muxuu yidhi ummak thumma ummak thumma ummak thumma abaak. soo ma hooyadii 75 bay heshay boqolkiiba, aabihiina wuxuu helay 25. markaasaad waxaad arkaysaa dad hooyadood iyo waalidkood ku caasinaya. bal waxaa la sheegay oo maalindhaxaasa la ii sheegayay nin imaam masaajida ana masaajidka u socdo ka hadli lahaa arrin baan waxaan arkay wiil hooyadiis garaacaya buu yidhi, dariiqa ku garaacay. marka arrimahaas oo dhan waa inayna siiyaan caqli. inta waalidkaa kuu galay marna ma gudi karaysid. marka waa inay kugu xambaartaa baarinimo, u ducayn, hadday nool yihiin haddeen dhintaanba. intaas ayaan kusoo koobaya. wallahu subxaanahu watacaala aclam.